diyaarad gaar ah ayaa ka qaaday gegida diyaaradaha aadan cadda ee Muqdisho iyagoona ku labisan dariiska ciidanka gaarka ee Haramcad cutubyadii ugu horeeyay gabdha loo tababarayo booliiska Haramcad isla markaana tababar ku soo qaadanaya dalka Turkiga ayaa laga sogootiyay garoonka diyaaradaha aadan cadda ee Muqdisho taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar ayaa sheegay in gabdhaha Turkiga loo diray ay soo qaadan doonaan tababar booliiska gaarka ee Haramcad isla markaana lagu soo xulay aqoon iyo xeelado kale iyadoona muddo lagu diyaarinayay dugsiga tababarka booliiska ee General Kaahiye haddaanu nahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada unidiyada sida gaarka u tababaran inaanu maanta ku sagootino gegida dayuuradaha ee aadan cadda International Airport kooxdii ugu horeysay ambaadkii ugu horeysay oo ah gabdho Soomaaliyeed oo aqoon leh oo waxbartay oo muddo lagu tababaray dalka gudihiisa inaanu maanta u dirno dalka walaalaha nahay ee Turkiga iyagoo soo baran doona aqoon la xiriirta sida ciidamada gaarka ah ay u howlgalaan gabdhahan waxaa lagu soo xulay aqoon karti iyo dheeraad ay muujiyeen intii ay ku jireen xerada akadeemiga ee General Kaahiye intay ku jireen waxaan idin rajaynayaa safar wanaagsan waxaan Ilaahay uga baryayaa safarka idinkoo soo noqday oo wax u soo bartay dalkiina inaad ku soo noqotaan caasimadda dalka idinkoo tababar ku soo qaadan doona dalka Turkiga aanu walaalaha nahay waxaan rabaa halka inaan aad iyo aad uga mahad celiyo macallimiintii safaaradda macallimiintii wax soo bartay taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya General Sakiyo Xuseen ayaa gabdhaha Turkiga loogu qaaday tababarka ciidan kula dardaarmatay in ay ilaaliyaan sumcadda dalka midda dadka iyo midda booliiska Soomaaliya waxaana ay ku dhiirigelisay in ay soo qaataan casharada tababarada ciidan la xiriira koox ahaan isku wada xirnaada hadda ka wada imaateen qabiilo kala duwan ama guriyo kala duwan maanta kulliina waxaa tihiin kooxda ka tirsan Haramcad rag idinka horeeyana iyo kuwa iga dambeeyana waxaa tihiin walaalo ani waxa iga fiican oo qalbiga ku dajisanooya gabdhaha ii soo socdo oo garab ii noqon doon si idinka marka garab idigu noqdo idinka maanta garab ii noqdo qarankana garab u noqdo ogaada gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay la kulmaan ama kufsi ha noqoto dil ha noqoto afduub ha noqoto guur qasab ha noqoto wax badan ay la kulmaan maanta haday helaan ciidan gaar ah oo gabdho kaliya ka tirsan oo iyaga xuquuqdooda u doodayo gabar walba soo ma ku seexan karto nabad iyo barwaaqo waxa mas'uuliyadna saaran ogaada maanta waxa u maqantay waa qarankiina iyo ciidankiina iyo hooyo walba iyo gabar walba oo dhibaataysan oo sugayso dadkii badbaadin lahaa ogaada shaqada ku jirtiina waa shaqo ajar iyo xasanaad niga raacayso waa hadaa u niyeysatiin Cabdi Casiis Okay TV Universal magaalada Muqdisho